وعانو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada page-ka YouTube-ka ee Kalkaal Media oo aad kala socotaan warar xiiso badan. Wararkan idin haynana waxaa ka mid ah xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda Soomaaliya oo la shaqeeya ururka Al-Shabaab. Gudoomiyihii hore ee degmada Marka Maxamed Cismaan Yariisow oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda amni ee magaalada iyo halka ay marayso. Hogaamiye Maxamed Cismaan Yariisow ayaa si kulul uga hadlay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxa uu si gaar ah farta ugu goday Yariisow inay jiraan rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo ka howlgala xarumaha waaweyn ee dowladda Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee magaalada Marka Maxamed Cismaan Yariisow ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah xildhibaanada saraakiisha ciidamada sirdoonka iyo militariga dowladda inay gacan saar dhow la leeyihiin xarakada Al-Shabaab kuwaasoo u fududeeya qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho. waxaa dhacday ciidan tiknikooyinkooda fara badan beriina waad maqashay tiknikadii dowladda oo intaa tiknika Al-Shabaab qaadatay taasay wax dhaci kara maan ragii qoryo haystay gaadariga ahaabay marka maxaa ku yiri laata buur inta qoryo lagu dowladda lagu qaatay qaraxa marka dhaca ciidamadii dowladda oo dhan jooga marka waxa ku sheegaya nimanka oo la shaqeeya saraakiisha Al-Shabaab la shaqeeya kamid ah ayaa ka buuxa meelaha nabadgelyada iyo qaraxa ka dhacayo marka dowladda waxaa go'aansanayna inay baaritaan dheer sameeyaan saraakiisha oo wax loo dhiibayo in ay wadaninimo iyo dowladnimo ay ka go'an tahay iyo shacabkiisa badbaadaya in ay ka go'an tahay in xil loo dhiibaaroon haddii kale nin oo macnaa laba simkaari ah dowladda marabo shabaabna marabo waa lama simkaari marka Muqdisho aad iyo aad u xumaay qaraxyada ka dhacaya dibka ka dhacaya shacabka ku dhamaanaya mas'uuliyiinta ku dhamaanayaan marka waxaan leeyahay dadka amniga ku shaqada leh farsamo kale har bedelaan farsamada ay wadaan bedelaano nabadiidka waxay yihiin mare kullu beesha dhaqaaqay ay qaanaan meel ay qarax jiraan dara kalli ka warqabaan ka gal qarax lagu magalayo marka taas waa arrinta kuwad marka dowladda kulli baa ayada gacan dheer ayada iga mas'uuliyad weyn ayada taala inay arrimahaasi macnaa ka hadasho ama amniga go'aan ka qaadato. magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxaa gacanta ku haya laba maleeshiyo oo u abaabulan qaab qabiil kuwaasi oo uu ka mid yahay hogaamiyaha gudoomiyihii hore ee magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa intaa nooga dhan warkii ku saabsanaa xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda Soomaaliya oo la shaqeeya Al-Shabaab sida uu shaaciyay gudoomiyaha magaalada Marka Maxamed Cismaan Yariisow. asxaabta ku cusub page-ka YouTube-ka ee Kalkaal Media waxaan ka codsanaynaa inaysan ilaawin subscribe-ka si wararka dambe ee Kalkaal Media ay ula socdaan.